way dadkoo dhani waa meesha keliya ee dunida muslimiinta ilaa iyo hadda ah aan la ogolayn inaad soo bandhigto wax fasqiya publicly lama iman kartid wixii aad private adigu gurigaaga ku samaysanaysid adigu u damacday albaabkaada hoostiisa dad ku samaysanaysid dee ilaahay unbaa kula xisaabtamaya laakiin lama soo banbixi kartid khamri lama soo banbixi kartid daroogo lama soo banbixi kartid intaad jirkaaga soo qaawiso oo dhar gaagaaban soo xidhato inan iyo gabadhba bannaanka uma soo bixi kartid hal su-aal bay dadka weydiiyaan intooda badan oo qof kasta oo common ah uu ku weydiinaya su-aasha keliya lagu weydiinaya waxa weeyaan miyaa muslim miyaa tahay مسلم بعد مركز هذا ها مسلم بان هاي الحمد لله مسلم بان مركز هذا وسفي عمل جسود وينيه يد اللي يرضيه وحي أركان تد مسلم مجعهان لكن دقنا هان عن مسلم هين أو سيدا عاد بيها تكان كوجيب سنيسو أيو ويل كده اللي يرضى هان كدرتي وتكان كوجيب سنكرا خمرجي هذه ما أنت تسألهان أرضي كمية الصومالي أما الصومالي ده وكمية وما أنت دوني إنه هذا الكاغا داوضه أو كقنعه إن باكستان ama jaamacadu ka soo dhigto ama caafimaad oo kale ay uga baahdaan xagee ka heli karaan tusaalaha xataa dhalinyaradeennii caafimaadka ku soo baratay Pakistan iyo dhalinyaradeennii xataa waxbarashada kale ku soo baratay dalka waa shining stars way ka muuqdaan waxaa kamid ah aadan xaaji maxkamadda ninka haysta oo wax ku soo bartay waxaa kamid ah wasiirkeena hadda jooga ganacsiga oo isaguna Pakistan wax ku soo bartay oo dhalinyarada Pakistan ka soo aflaxday kamid ah Dr. Axmed Saki ma ku soo dhaweynayaa maanta halkan waxaynu uga faa'iideynaa dhalinyarada Soomaalida Somaliland ha noqdaan dhammaanba inta af Soomaaliga ku hadasha imika waxa tahay madaxa macadka horumarinta iyo istaraatiijiyadda jaamacadda Hargeysa waxaad wax ku soo baratay wadanka Pakistan dadku marka inta badan ama dhalinyaradu markay wadan ku soo bartaan tusaale aan wadankooda ahayn waxay arkaan fursado badan oo dhalinyarada kale ee Soomaalida ah ay ka faa'iideysan karaan bal imika wadanka Pakistan oo kale adigu waxbaad ku soo baratay in badan baad ku nooleed maxay yihiin fursadaha aad ka aragtay dhalinyarada kale uga faa'iideyn lahayd xagee noqoto xagga waxbarashada kale horta Pakistan waxay ka mid tahay ay ka mid ahayd ilaa imika ay ka mid tahay wadamada ugu badan ee soo dhaweeya ardayda Soomaalida deegaankii doonana ka yimaadaan baasaboorkii doonana hasitaan dhaqan ahaana waa wadan ilmaha lagu aamini karo hooyooyinkii waalidka raba inay ilmahooda qurbo u diraan waxna ku soo bartaan akhlaaq wanaagsan ku soo yeeshaan waa meelaha ugu wanaagsan horta ee la geeyo berigi hore waxa xoog la saar jiray in Suudaan loo diro civil war baa ka bilowday Yemen baa haddana ahayd meel markii soo waxbarashada la doonto iyadana dagaal baa ka bilowday oo saameyn bay ku yeelatay waxa kamid ahayd wadamada la geyn jiray oo imika aad iyadana u saameysay muxuu ahaa Jordan baa iyadana kamid ahayd oo colaadahan bariga dhexe ay ku soo noqnoqdeen iyadana saameysay waxa cusbaa oo muddo dhaweyd soo baxay intii ka dambeysay 2012 xiriirkii Turkiga uu la soo sameeyay dawladda federaalka Soomaaliya isaguna aad loogu jabay laakiin isagana waxa laga kulmay cunsuriyad badan iyo dhalinyarada iyo waxay arkeen dad muslim magac ahaan laakiin dhaqan ahaan aan muslim ahayn oo sida aad biyaha dukaanka uga iibsanayso ayuu wiilkii dhalinyarada halka ka dirtay uu dukaanka uga iibsan karaa khamriga marka ilmihi aad waxbarasho u dirto mararka qaar noloshii caadiga ahayd ba ka dhacaya ayay noqotay inay iyaduna qayb ka noqoto mushkilad ku soo noqotay marka waalidkii walaac badan bay ka qabaan ilmihiina waxbarasho tayo leh u rabaan experience wadan kale inuu qofkii ilmihii wax ugu soo barto inkastoo imika jaamacadeeni ay quality-gooda kor soo kacayo marka Pakistan waa ideal waa meesha ugu wanaagsan ee qof waxbarasho akhlaaq diimeed iyo akhlaaq dadnimo iyo kalgacal waalid iyo dareen maxaadani bulshadiisa inuu dareemo ay kamid tahay waa meel uu ku soo baran karo qofka waxbarashadeedu wadamada ugu wanaagsan xagga waxbarashada xagga tayada marka la yiraahdo ay kamid tahay jaamacadaheeduna waxay aqbalaan shahaadooyinka iskuuladeena ka soo baxa guud ahaan deegaanada Soomaalida hadday tahay shahaadada Somaliland waxbarashada iskuulka sare iyo hadday tahay federaalka labadaba way aqbalaan taas marka waxay ku tusinaysaa inay u furan yihiin inay deegaanadaasi Soomaalida dadka ka imanayaan jaamacadahooda inay aqbalaan waa wadankaasi jaamacadda doonta hadda tagto waxa lagu bartaa luqadda Ingiriiska marka luqad cusub inaad barato iyadana qasab maaha waa faa'iido labaad ay dhalinyaradu ka faa'iideysan karaan noloshuna way ka jaban tahay mararka qaar markaad u eegto deegaano kamid ah Soomaalida magaalada Hargeysa oo kale noloshoodu way ka jaban tahay caasimadda islaambaad oo kale markaad eegto nolosha Hargeysa ka qaalisan
halkaas waa fursad weyn wey. marka fursad weyn baa uga bannaan xagga noloshiina way ka jaban tahay, waxbarashadii way ka tayo fiican tahay, sidoo kalena luqadda wax ku baranayana waa English oo jaamacadoogina waa jaamacadaha ugu wanaagsan ee la aqoonsan ka mid yihiin. waxbarashadooda lagama been abuuri karo, shahaadooyinkooda waa secure, si fiican baa ardayga wax loo baraa, akhlaaq fiicanna isagoo leh oo waalidkiisii iyo dalkiisii iyo dadkiisiiba u dhaga nugul buu soo noqon. marka waa fursado uu qofku si yaroo fudud uga faa'iidaysan mar hadduu qiimo jaban noloshooda way ka qiimo jaban tahay, waxbarashada jaamacadahooga xataa way jaban yihiin. xataa hadduu qofku self finance uu rabo inuu isagu iska bixiyo, jaamacadaha qaar scholarship lagu helaa way jirtaa programyada qaarkood. programyada qaarna hadduu qofku xataa iska bixiyo intii aad ku bixin jirtay waddanka ay in ku dhow ama wax yar uun ka qaalisan ayaa laga yaabaa inay kaaga baxda haddaanay kaba jabnayn meelaha qaarkood, jaamacadaha qaarkood haddaan ka jabnayn. way laakiin iminka ardaydoo kale waxay isweydiinaya talow dadka Soomaalida ama Somaliland ha ka soo jeedaan adigu Soomaalida ee Pakistan ku sugan talow sidee ugu nool yihiin, bal haddaad sawir ka siiso iyagoo Pakistan dhex jooga aad geysaba. masalan tusaale yar waxaan ku siinayaa deegaanka markaan wax ku baranayni aan ku noolaa anigu aan deganaa, waxyaabaha aadan dareemayn waxaa ka mid aha ma dareemaysid inaad waddan ajnabi joogto. hal su-aal bay dadka weydiiyaan intooda badan oo qof kasta oo common ah uu ku weydiinaya. su-aasha keliya lagu weydiinaya waxa weeyaan miyaa muslim miyaa tahay, ma muslim baad markaad tirahdo haa muslim baan ahay, alxamdulilah muslim baan ahay markaad tirahdo waa si fiican baa lagu soo dhaweynaya. oo waddanka waxaa lagu dhisay tawxiidka, shahaadada lagu dhisay. marka waa dad Hindiya iyo Bakistaantu waa isku hal dal bay ahayn, isku dad bay ahayn, waxa kale kaxeeyay diin bay ahayd. marka iyaga waxa ku weyn aragtida diinta islaamka ku weyn. marka hadduu qofku yidhahdo muslim baan ahay si fiican baa loo soo dhaweeya. inaad ajnabi tahay ma dareemaysid intaad dhex joogto iyaga. dad cunsuriyad leh oo dadka waddankooga iminka sida imka Turkiga oo kale dad ajnabiga nacab maaha. sidoo kale dad kalarka iyo midabkaaga iyo kugu eryanaya iyaduna maaha. waxa kaloo ku wanaagsan yihiin martiqaadkana waa dad ku wanaagsan oo qofkaad isbarataan wuxuu ku leeyahay soo dhow marti inaad u noqoto rabaa inuu iridiisa kuu furo rabaa. waxaad dareemaysaa weli inaad dalkaagii joogto, sometimes waxaad dareemaysaa faa'iido ka badan dalkaaga inaad ku haysato. marka nolosha ay ku nool yihiin dadkaasi waa nolol jaban, amni bay ku haystaan, waxbarasho jaban bay ku haystaan, tayalay ku haystaan, laguma dhibaateeyo, lama cunsuriyeeyo, noloshii dalkooda ay ka heli lahaayeen mid lamid ama ka wanaagsan bay ku haystaan. way adood kula talin laakiin dhalinyaradu inay qofkii raba مثلا inuu bachelor degree barto ama masters rabto ama PhD inuu barto raba waa fursad ku habboon inuu dhaqan ka duwan soo arko waddan saynis yahanalade oo nuclear power ah oo culumta sayniskana heer fiican ka gaaray, dhakhaatiirta adduunyada ugu wanaagsan leh, Nobel Peace Prizeska ugu badan ee muslimiintu qaataan raggi qaatay leh, ilbaxnimo hadday caafimaad tahay iyo hadday engineering tahay. halka caafimaadka oo kale bal ka warran maadaama ay dad badan ay caafimaadka u tagaan Hindi oo kale ama waxbarasho u tagaan ama caafimaad baa u tagaan bal ka warran. ni arrintaasi dhowr jeer bay maskaxdayda ku soo noqotay. waxaan arkay dad badan oo Indiya tagaya oo marka hore fiisaha u fududaa oo seero fudud loo heli jiray, laakiin cabasho badan baa ka timid oo waa la yaraa dadkii sidii xoolaha loo kala iibsaday. iyo waxba dhexmaro oo turjumaanadii may xataa Hindidii baa baratay dadka ku daweynayay 90% maaha dad muslimiin ah, dareen badan oo naxariis kama arkaysid. deetana qofkii bukaa sidii xoolaha loo kala iibsanaya, mushkilad badan bay kala kulmeen dadku. Pakistan waxay kaga wanaagsan tahay cilaajkeedu meelaha qaarkood waa top class, waa meelaha ugu wanaagsan, dhakhaatiirta ugu wanaagsan adduunkan iyagu ka soo baxaa on the record haddaad eegto dhakhaatiirta ugu wanaagsan ee Yurub, dhakhaatiirta ugu wanaagsan ee Mareykanka, xataa dhallinyaradeenii caafimaadka ku soo baratay Pakistan iyo dhallinyaradeenii xataa waxbarashada kale ku soo baratay dalka waa shining stars, way ka muuqdaan. waxaa kamid ah Aadan Xaaji maxkamadda ninka haysta oo wax ku soo bartay, waxaa kamid ah wasiirkeena hadda jooga ganacsiga oo isaguna Pakistan wax ku soo bartay oo dhallinyaradii Pakistan ka soo aflaxday kamid ah, dhakhaatiir badan oo iyagu caafimaadka bartay oo iyagu dhakhaatiirteena ka shaqeeya oo pride ah ayaa iyaguna jira. caafimaadka marka timaado Hargeysa dhex marto ama guud ahaan Somaliland dhex marto, hadday indhaha tahay iyo hadday qaliinadaasi bilaashka lagu sameeyo laga imanayo 90% dadka ka sameeya waa Pakistaanta yimaado bilaash waliba ugu sameeya. ka war marka deegaankooda ugu tagto way ka jaban tahay. India 50% bay ka jaban tahay haddaanay kaba badnayn.
kharashka ku baxaya fiisadooduna wuu ka fudud yahay inaad safarto ma baahna online baa lagu apply gareeya qof kasta waa apply gareyn karaa haddaad hesho qofku caawiyo masalan wadanka Pakistan gudaheeda joogaad la xiriidho oo uu ku soo dhameyn karaa waxaan 2 usbuuc gaarayn ayaad ku helaysaa fiisada gabigiisa caafimaadka adoon cidna baryootami way gurigaaga jooga haddii maanta tusaale ahaan arday ka mid ah Soomaaliland ama Soomaalidaba ka mid ah uu maanta doonayo inuu hadalkaaga daawado oo ku qanco in Pakistan ama jaamacad uu ka dhigo ka soo dhigto ama caafimaad oo kale ay uga baahdaan xagee ka heli karaan tusaale ahaan way jiraan agency ka shaqeynaya way jiraan qofkii la soo xidhiidhana waad siin kartaa contactigayga wan si volunteer waan u caawin karaa qofkii raba inuu guidance helo ana diyaar waan inaan caawiyo caafimaadka sidoo kale waxaan ku xidhi karnaa agency wanaagsan oo iyaguna ka shaqeeya oo aad ugu wanaagsan hospitalo waxaa jira isticmaala laser surgery waliba latest ah oo nuclear energy power oo energy nuclearka lagu isticmaala jirta xanuunada kansarka xanuunada qaliinada xanuunada lafaha xanuunadan ku soo noqnoqda Soomaalida inta badan ay u safraan siro fudud baa Pakistan lagu soo daweyn karaa ku darso noloshiina way ka jaban tahay India ta Pakistan baa ka jaban kamana walaacsanid inaad cunto xaaraana iyo inaad cunto meesha degtaba cunto xalaal lagu siin dadka ku soo dhaweynay meel kasta masaajid baad ka heli salaadaad ku tukan ilmaha dad waxbarasho dirsatana waxa kaliya uu soo baran doonaa waxa waa dhaqanka wanaagsan ee islaamka way dadkoo dhani waa meesha kaliya ee dunida muslimiinta ilaa iyo hadda aan la ogolayn inaad soo bandhigto wax fasqiya publicly lama iman kartid wixii aad private adigu gurigaaga ku samaysanaysid adigu u damacday albaabkaaga hoostiisa dad ku samaysan day ilaahay baa kula xisaabtamay laakiin lama soo banbixi kartid khamri lama soo banbixi kartid drug lama soo banbixi kartid intaad jirkaaga soo qaawiso oo dharka gaaban soo xirato inan iyo gabadhba banaanka uma soo bixi kartid macnaha waa environment ku nool environmentkii saxda ah ee familiyada muslimka ku haboon waa fursad weyn markaa dhalinyarada haystaan waa fursad aad u wanaagsan ayuu qofku haystaa oo ka faa'iideysan karo aad baad mahadsantahay insha Allah waxaan rajeynaynaa in dad badan ay ka faa'iideysan doonaan fursadda oo dhalinyaro badan oo hadalkaagaas uu chance u noqon doono ومرحبا عادي أتبدأ مع سنتين. السلام عليكم.